ciyaar aad u xiisa iyo xamaasad badan. Guushana dagaal iyo dadaal dheer loo galayay ayaa ku dhex martay garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa. Labada gobol ee Maroodi Jeex iyo Buuhoodle, labada tababare ayaa ku soo galay garoonka shax aad u qurux badan oo farshaxamaysan. Ciyaarta ayaa ku bilaabantay jawi kulul oo xamaasad badan. Bilowgii ciyaarta ayaa waxaa gool la yimid gobolka Buuhoodle, waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cilmi oo ahaa kabtanka xulka gobolka Buuhoodle. Isla qaybtii hore ee ciyaarta ayay gobolka Maroodi Jeex dhaliyeen goolkoodii koowaad, waxaana madax qurux badan u dhaliyay lambarka 11aad ee afka hore ugu ciyaarayay ciyaaryahanka lagu magacaabo Goofinda. Gobolka Maroodi Jeex ayaa mar kale dhaliyay goolkoodii labaad, waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Guuleed Kayse oo afka hore uga ciyaarayay. Kubadda ayaa ahayd mid aad iyo aad u adag una badnayd weerar iyo weerar celis. Isla qaybtii hore ee ciyaarta ayay gobolka Maroodi Jeex dhaliyeen goolkoodii saddexaad, waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Khalid Cali oo uga ciyaarayay khadka dhexe. Qaybtii hore ee ciyaarta oo dhammaad ku dhow ayay gobolka Buuhoodle dhaliyeen goolkoodii labaad, waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka uga ciyaarayay afka hore oo lagu magacaabo Bashaar. Qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isku soo noqday ayay gobolka Maroodi Jeex dhaliyeen goolkoodii afraad, waxaana u dhaliyay weeraryahanka khabiirka khatarta badan ee afka hore uga ciyaarayay lambarka 11aad Maxamuud Cabdi Xasan Goofinda oo ciyaartan ka dhaliyay 2 gool. Sidaana waxaa ku soo gabagabowday ciyaarta, waxaana ciyaartu noqotay 4 gool oo ay leeyihiin gobolka Maroodi Jeex iyo 2 gool oo ay leeyihiin gobolka Buuhoodle. Gobolka Maroodi Jeex ayaa si toos ah ugu gudbay wareegga 8-dhamaadka ee gobolada Jamhuuriyadda Somaliland, isagoo ahaa gobolka Maroodi Jeex gobolka martigelinayay gobolada ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland.